ظالمك أو ضدك قردر هيستا أو ظلميانا أسقون عقوبة سجويان وحكاد عضي لنا عن كونفورتا دول كان وحي أفجوية كشجية أو بير الليلة قصة ضدك حقوقال كأها أي شيء واللي بحلقه في كبضن أي قصة أي شيء مدهورة عينا أهيد سجاشن يشنتي مالها سكوب بجنة حلقي قحة نباتدو أي تاجنيد بيهيد نبى وحكوها بسنين دول كيس بيريهيس اسكف الشيء نكي وصل لابتي دول كلها وقح كسول لابتي مركو يمد بيجري بيرتان أنا إسكاله كي ظالم كاوحي وحبا أنا وكوما هاي دول كان أنا إسكاله من إبان كرت مقالدي طولدي بيروه كي يلين بوتجو ضدكي والله الله وحي وجرنا يا هرب والله كل ما وحي يري سو مج جرنا يسان إن هبل أهاي بيرتي إذا سو جرنا ما يسان نين كان إذن كايسهيب وداك تاني جرنا يسان نين كان يقالها طلع ظالم كا أنا وملا أن هذا هي ملا أوقح يا ملا دول كيجينا فشان ربع هذا ياشي وحي أتجاه نين كي بالله طلع إنه نين كاس بيرت اللي هي وكعر يكون الصلابتي ودونه هي إن لجوه يجيو بيرتي سووا فشة وديد ووان بيسميين وحي يراهدين ويا هذا كلا بر عن كدقنا برنا أساق السي برنا هكاجة تنازلوها كوداي صار ما يقول أو يمادنا وحي يراهدين دا بركة تنازل يسيد أو برا أدو دين يسي أساقة أديك بركة كلا والجو دين هي وأنم باهن أو حليس أو باهن إنه طبعا لا أو باهن وأقبله مركز قيبتي سي بيرتي كين الظالم كهنا قيبتي كلو بيرت وحصاد على طو صوب بحضي قيبتي نينكي حق لها سفي عم بأصاد على الطي وأنا أمي رد الشيء قيبتي كان مركز صوب بحضي إسكجو بالتبع كي ظالم كها وحو يري وحايمو قتنين كان إنه استحري أو سحر وإيم ملاجي وبيرتي إذا سيدا أي كوجو بتي انتو يميدو حبات سوقات وشرح بكو نفت دل بو أقدر حق يسيبو قاطي دلنا وأقدر مركو دلي أيو يدي هلا قاعد بختي جيسو هلا حباب مقالدونا كآب دادكي وقادي ويا نكي رولكي ولا قرر تشوي سيبا أوتجن وحيا نكنا وقادي وين ورقاتين لعنة صلى بتوحي لسيو سيو هلا يسان سيو قادي ويدين أنا إذا لقاضي يا كان مركو قبتي وافضوا هذا بقى godkii markuu geeyay ayuu yiri soo dhiiba gudaha galayaade gudihii markuu galay oo saa u dhex istaagay oo meydkii saa u dhigay gudaha ayuu ku dhigay dhab oo qabsaday ninkii cabaad buu ku dhiftay wariga fujiyoy meydka iga fujiyoy dadkii markay arkeen ninkii daalimka ahaa oo qabrigii dhexdiisa u taagan oo dhawaaqaya meydkiina uu ku dhagan yahay ayay intay argagaxeen kulligood meesha ka cararay qorraxduna mar ay sii gaabanayso sii dhacaysay ahayd dadkii waa argagaxeen magaaladii bay iskugu tageen hal qof oo ku dhiirada inuu soo laabto waa laga waayay markii waagu bariyay ayaa la yiri meeshii aan fiirin waxa loogu yimid labadoodii oo meyd isla ah oo kii daalimka ahaa uu hooseeyo kii uu dilay oo madluumkaan uu koreeyo ciida lagu wada xabaalo lagu wada tagay cuquubada qofka daalimka ah axyaanan waxay ugu imaanaysaa asagoo nool ayuu silc u dhimanahay mar maalkiisay galaysaa mar caafimaadkiisay galaysaa masaa'ib kala duwan baa ku dhacaysa axadul mashaayikh baa wuxuu ka sheekeeyay qiso cajiib ahayd qisadaasi waxay ahayd haweeney baa dhimatay habeen kasta nin ay qaraabo yihiin oo akhyaar ahaa oo culimo ahaa baa ruuyo ku arka qabrigeedii oo gubanahayo hoolac ka shidan yahay ayaa waxaa ka dhex yeeraya ayadii oo holcaysa oranaysa alxaliib 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 ereygaasay ku dhawaaqaysa iska cawdu billaystaa ninkaani faruhu ka qaado dhowr sano markay ka soo wareegtay ruuyadii habba ay ku soo laalaabanayso ayaa ninkii wuxuu go'aansaday arrintan inuu baaro oo ay leedahay haweentan gubanayso qabriga ku gubanaysa oo ruuyada ku arkahayo alxaliib alxaliib caanaha ku haysa qaraabadii buu u yimid dadkeedii wareystay gurigii buu yimid
qisadan waxaa la yidhi haddaa saa soo aragtay waa macruuf haweentan waxay haysay ilmo ay dhashay iyo ilmo ninkeedu dhalay oo ayadu aysan dhalin oo saqiiro ah bay haysay biilkaa loogu dhiibaa caanaha markay keento ilmaha aysan dhalinna koobka barkiis bay biyo ugu dartaa waa u baraxdaa kuwa ay dhashayna biyo uguma darto ayagoo aan biyo lahayn bay siisaa macruuf bay ahayd inay ilmaha saqiirka ah oo mas-uulka ay ka tahay oo biilka loogu wada dhibay qaarna caanaha ay biyo ugu darto qaarna waxa weeyaan ay ka daysa biyaha macruuf bay ku ahayd ereyga marka aad arkaysa alxaliib annagu intaan ka ognahay xogtiisu intaas weeye walaalayaal waxaan ogsoonnahay dadkii daalimiinta ahaa oo waddankan halaagay maanta xaggay ku dambeeyeen walidaalika nabigeenna calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidkaas qofkii taa ka dulmiya toddobada dhul baa qoorta loo gelinahayaa saciid ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray ayaa haweeney waxay ku qabsatay dhul arwaa la odhan jiray markaasay waxay tidhi deris bay ahaayeen dhulkan anaa iskale dhulkayga qayb ka midoo ku jira markay ku qabsatay baa ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhi dadkan maxaa u dulminaysaa haweentan miskiintaa maxaad u dulminaysaa markaasuu wuxuu yidhi ma anoo nebi moxamed ka maqlay man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min 7 aradiin qofkii haltaa ka dulmiya 7 dhul baa qoorta loo gelinayaa anoo nebi moxamed ka maqlay miya iga suurtowdaa inaan dulmiyo oo xaqeeda aan qaato inta ay sheeganayso oo ay leedahay waa iga haystaa ayadu ha calaamadaysato ha qaadato markaasay intii ayadu ay rabta calaamadaysato tiri intaan anaa leh laba arrimood buu ku habaaray ilaahu wuxuu yidhi acmi basaraha ilaahu araggeeda tir oo indhaha ka tuur wajcal qabraha fii daariha qabrigeedana gurigeeda ilaahu ka dhig muddo ka bacdi way indhabeeshay indhihii baa ilaahay tiray ayadoo derbiga ku socoto saa u warwareegaysay ceel ka dhex qodnaa dhulkii ku dhex dhacday asagii baa qabri looga dhigay siduu u habaaray baa ilahay ku kala subxana wa tacaala qofka daalimka ah qofka uu dulminayo oo madluumka ah baryihiisa ilaahay waa aqbalaya wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaaatun laa turaddu dacwatuhum saddex qolo ilaahay baryahoodu ma celiyo waxaa ka mid ah wa dacwatu lmadluum qofka madluumka ah oo la dulmiyey baryihiisa ilaahay uu baryahayo habaarka uu qofkaa dulmiyey uu habaarayo tuxmalu cala alghamaam daruuraha ayaa lagu xambaaraa oo lagu qaadaa wa tuftaxu laha abwaabu الsamaa samada irdaheeda ayaa loo furahayaa wayaquulu rabu wacizatii laansurannaki walow bacda xiin ilaahay baa dhaaranaya o odhanaya cizigaygaan ku dhaartade waan kuu hiilinayaa oo kuu gargaarayaa walow bacda xiin waqti kadibba ha ahaatee guul ayaad heli doontaa oo waa guulaysan doontaa qofka madluumka oo la dulmiyey hadduu habaaro qofka daalimka oo dulmiyey oo gacmaha kor u taago waxa weeyaan ilaahay waa ka aqbalayaa si gooniya ayaana ducadiisa loo aqbalaya oo loo maamuusaya